ma ogtahay daawade in internetka daqiiqadiiba la isku dhaafsado in ka badan 230 milyan oo email sidoo kalena la soo geliyo muuqaallo soconaya ku dhawaad 400 oo saacadood sidoo kale Facebooka daqiiqadiiba waxa la soo dhigaa 240,000 oo posti waxani oo dhan waxay dhacayaan waa daqiiqad gudaheed haddii aynu ka nimaano muuqaalada iyo sawirada ma ogtahay in dhaqaalaha isaga kala gudba internetka maalin kasta lagu qiyaaso 10 trilyan oo dollar haddii aynu si kale u dhahno adduunka aynu maanta joogno internetku wuxuu u noqday halbowle aan ilbiriqsi laga maarmi karin laakiin weligaa ma isweydiisay xagee ka yimaada internetku yaa maamula yaase ikhtiraacay su'aalahan iyo kuwa kaleba ayaynu muuqaalkeenna maanta ku dul istaagi doonaa magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina oo waa Bari Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta fikradda internetku waxay bilaabatay bartamaha qarnigii tagay dalkii ugu horeeyay ee ay ka bilaabatayna wuxuu ahaa dalka Mareykanka yoolku ma ahayn in la helo internet adduunka oo dhan isku xira balse waxay rabeen oo kaliya samaynta nidaam isku xiri kara dhowr kombiyuutar oo xogaha la isku dhaafsan karo waxayna u rabeen nidaamkaasi in ciidanka Mareykanku uu xogaha iskula wadaago marka uu dagaal ku jiro oo ay adkeyd in guutooyinka ciidanku ay si dhaqso ah xogaha u wadaagaan wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa curisay wakaalad ay ugu magac dartay ARPA oo uu yoolkeedu ahaa fulinta hawshan wakaaladdan ayaa ku guuleysatay sanadkii 1969 inay samayso hindise fariimaha la isku dhaafsan karo oo ay ugu magac dareen ARPANET iyagoo adeegsanaya nidaamkan ayay awood u yeesheen inay 2 fariimood u kala diraan 2 kombiyuutar oo uu mid yaalay jaamacadda California kan kalena uu yaalay machad la yiraahdo Stanford waxayna ku wada yaaleen labaduba isku gobol talaabadan oo ahayd xilligaasi meeshii ugu dambeysay ee waadamuhu ka gaaray tiknoolajiyadda ayaa haddana bilow u noqotay curashada internetka aynu maanta naqaano dhamaadka 70meeyadii ayaa la hormariyay farsamadii internetka waxa la bilaabay in looga faa'iideysto xagga bulshada iyo dhaqaalaha waxa la ogolaaday in shirkadaha ganacsiga iyo shacabka loo ogolaado inay adeegsadaan internetka xilligaa jiray wuxuu ku koobnaa fariimo qarsoon oo markii la diro u baahan in program kale uu soo akhriyo oo ka dhiga wax qofka ay fariintu u timid uu akhrin karo programyadaasi oo luqado kala duwan ku qornaa ayaa waxay sababtay in internetku uu noqdo wax ku kooban oo kaliya jaamacadaha iyo macaahidda cilmi baarista ayna adag tahay in dadka caadiga ah ay fahmaan qaabka uu u shaqeeyo iyo sida loo adeegsadaba ka hor inta uusan sanadkii 1989 injineer ka shaqaynayay machadka cilmi baarista Yurub uusan soo saarin warqad cilmi baaris ah oo uu ku soo bandhigayo hab cusub oo internetka lagu horumarin karo qoraalada la iskugu dhex dirana ka dhigaya kuwa si caadi ah qofka qoraya iyo kan akhrinayaba ay u wada arkaan si fududna ku gaaraysa qofkii loo diray meel kasta oo uu caalamka ka joogo waxaana halka ka bilowday nidaamka internetka casriga ah ee afka qalaad loo yaqaano World Wide Web loona soo gaabiyo www waxaana fududaatay in internetku noqdo aalad qof kasta uu si sahlan u adeegsado wax ku qoro ku ganacsado wax ku barto sidoo kalena uga maarmo fariimihii kale ee waraaqaha ku dhisnaa ee la isweydaarsan jiray ama boostooyinka la isugu diri jiray waxaana muddo gaaban kadib la bilaabay in la furo suuqyo looga adeegan karo internetka dhexdiisa sida Amazon, eBay iyo kuwa xogaha laga raadsado sida Yahoo iyo Google haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah yaa leh internetka oo maamula jawaabta ayaa ah cid gooni u leh internetka ama maamulkiisa loo geed fariisto ma jirto internetku waa shabakado isku xiran waxaana leh shirkado kala duwan oo ka maamula nidaamyo satellite-ka ku xiran dal iyo shirkad gooni u leh oo isticmaalkiisa u diidi kara dal kale ama awood maamul ku dhex lehna ma jiraan maxaa yeelay internetku ma ahan shay laga maamulo hal xarun ama hal qol balse internetku waa shay aan lahayn xarun dhexe oo laga hago balse ku qotoma kuna xiran xogaha la isdhaafsanayo haddii aan si ka sahlan kugu sharxo si loo helo internetka waxaa la adeegsadaa keebaladan aad u jeedid way kala duwan yihiin balse waxa ugu caansan uguna xawaare dheereeya keebalada loo yaqaano fiber optic waxay isaga kala gooshaan badaha saxarayaasha iyo sidoo kaleba magaalooyinka waaweyn dhexdooda waxay ku xiran yihiin keebaladani serverro kala duwan oo shirkado aan shaqo isku lahayn ay kala maamulaan kadib marka dalka ay soo galayaan keebaladani waxay soo galaan iyagoo midaysan oo hal ah dawladda dalkaasi
ayaana u sii kala qaybisa faracyo kala duwan oo ay kala siinayso shirkadaha bixiya internetka ee ka shaqeeya dalkaasi. Shirkadahan ayaa iyaguna keeballadii la siiyey u sii kala qaybiya malaayiin farac oo ay ka iibinayaan macaamiishooda. haddaba seerfaradii aynu soo sheegnay inay yihiin kuwa ay keeballadani ku xiran yihiin, ayaa waxaa jirta in shirkad kasta oo adduunka bixisa adeeg internet sida shirkadda Facebook, Microsoft iyo shirkadaha la midka ah inay mid kasta leedahay seerfaradeeda u gaarka ah. tusaale ahaan, shirkadda ugu seerfarada badan adduunka waa shirkadda Microsoft, waxna leedahay ku dhowaad 1 milyan oo seerfar. Facebook ayaa iyaduna sidoo kale leh in ka badan 200,000 oo seerfar. shirkad kastana awooddeeda internetku waxay ku kooban tahay seerfaradaas ay leeyihiin, oo haddii ay seerfaradaasi ka damaan ama ay ka ciladoobaan adeegooda oo keliya ayaa dhexda ka baxaya. internetka intiisa kalena wuxuu ahaanayaa mid sii jira. sidaasi oo kale, internetku ma ahan mid dalal saamayn ku leh, oo haddii ay dhacdo in Maraykanka oo dhan adduunka laga waayo, kama dhignaanayso in internetkii uu meesha ka baxo, balse taa beddelkeed waxaa meesha ka baxaya Maraykanka oo keliya iyo sidoo kaleba shirkadihii ka imaan jiray dhankiisa. halka internetka sidiisii kale uu shaqaynayo shirkadihii aan shaqada ku lahayn Maraykanka. tusaale ahaan, shirkadaha Shiinaha ka yimaado oo kale sida TikTok iyo Hawaii iyo shirkadaha la midka ahna waxay ahaanayaan kuwo si dabiici ah isaga sii shaqeeya. xargaha internetka ee aynu soo sheegnay waxaa jira shirkado leh milkiyaddooda, kuwaasi oo bixiya mid ka mid a internetyada ugu raqiisan uguna awoodda badan caalamka. Google ayaa ah shirkadda ugu weyn ee leh keeballada internet ee ugu badan ee badda hoos mara. ku dhowaad 65,000 oo xarig ayay maamushaa, kuwaasi oo internetka siiya dalalka caalamka. qarniga 21aad ayaa noqday mid ku indhaqaaday mucjisada internetka. xiriirka aadanaha ayaa dhinac walba iska beddelay. internetka ayaana noqday mid ka mid a baahiyaha asaasiga ah ee aadanaha. warbaahinta, ganacsiga, safarka, saadaasha hawada, xiriirka dadweynaha iyo dhammaan adeegyada kale ee dabiiciga ah ayuu u noqday tiirka asaasiga ah ee ay ku taagan yihiin. dadka adeegsada internetka ayaa sannadkii 2000 ahaa 400 oo milyan oo qof, laakiin maanta tiradan ayaa kor u dhaaftay 5.3 bilyan oo qof. boqolkiiba 51 dadkan adeegsada internetka ayaa ku sugan qaaradda Aasiya, oo marka laga soo tago inay tahay midda ugu dadka badan, haddana ah tan lagu adeegsiga badan yahay internetka caalamka oo dhan. Shiinaha ayaana ah dalka ugu badan ee dadkiisu haystaan adeeg internet oo casri ah oo ku baahsan dalkooda. qaaradaha waqooyiga Ameerika iyo Yurub ayaa ah kuwo sidoo kale aad u horumariyey adeegsiga internetka. Afrika iyo Latin America ayaa noqday kuwa ugu hooseeya helidda internet xawaare sare leh oo dadka wada gaara. internetka ayaa beddelay habnololeedkii aadanaha. daqiiqadii waxaa dhex mara xogo aad u tiro badan. tusaale ahaan, YouTube daqiiqadii waxaa la daawadaa wax ka badan 4 milyan oo muuqaal. TikTok oo dardar culus ku socda ayaa daqiiqadii 165 milyan oo fiidiyow lagu dhex daawadaa. 230 milyan oo email ayaa la diraa. sidoo kale, Facebook ayaa daqiiqadii waxaa la soo dhigaa 250,000 oo bosti oo qoraal iyo sawiro isugu jira. 175,000 oo application ayaa lagala degaa storieska Google iyo Apple. intaasi oo xog ah oo la iswadaarsado 30 sano ka hor ma jirin, ama waxay ahayd riyo iyo qofkii waqtigan noolaa wuxuusan saadaalin karin.